xasan cali khayre magarab xumo siyaasadeed ayaa dishay mise go-aan uusan u bislayn ayuu gees la istaagay. halkii odayga laga galay faalladeennan kooban ayaana ku qaadaa dhigi doonaa. waxaa sabtidii soomaaliya ka dhacay wax lagu sheegay dhulgariir siyaasadeed kadib markii si sahal ah ama halhaleela mar qura loo sheegay in taladii laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre. wixii kadib dhacay xiise badan ma laha marka laga reebo xiisad iyo hubaan la-aan arrintan ka dhalanaysa oo ka qara weyn ra-iisul wasaare xilka laga qaaday marka laga eego marxaladda kala guurka ee awalba dalku uu marayay, balse taa aan mar kale dabool leh. aan markan eegno waxa khayra uu sababsaday. dad badan ayaa sheegaya inuusan arrintu ahayn saaxiib siyaasadeed la-aan iyo lahaan toona. qayb ahaanna meesha waaba laga saari karaa, waayo 4 sano ku dhowaada ma joogi kareen haddii uusan baalan lahayn ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. balse khaladka istaraatiijiga ah ee khayre markani sameeyey waxa uu yahay inuusan in badan bislaynin kana baaraandegin go-aanka uu keligii gaadhay ee ahaa in doorashadu ay xilligeedii ku qabsoonto. xusuusnow ka hadli mayno sax iyo khalad, balse siyaasaddu waa dan la isu geeyey iyo maxaa iigu jira oo faa'iida. taa beddelkeediina walaal gaara iyo saaxiib gaarihi ma jiro, gaar ahaana siyaasadda wasakhaysan ee casrigan oo ayn inta badanna anshax iyo alla cabsi ku dhisnayn. marka si wanaagsan loo eego waa go-aan habboon, balse taa marka laga yimaado waxaa looga fadhiyey inuu xaaladda darso 360 darajo islamarkaasina uu waayo arag u noqdo siyaasadda soomaalida oo uu fiiriyo madaxda sare ee taladu kala dhexaysay, ragga ay xukuumadda iskula jiraan sida wasiirada, xildhibaanada oo u muuqda inay la dhaceen ama ugu yaraan u laabdabceen ra'yiga ah muddo kororsi oo ay dantooda shaqsigihii ku jirto marka la eego soo jeedinta khayre ee ah inay hadda 6 bilood gudahood isaga baxaan. qiyaas xildhibaan la isu barbardhigay inuu 2 sano iyo dheeraad halkiisa iska sii fadhiyo, miyuu codaynayaa qof u sheegaya inuu hadda iska tago? jawaabtu waa maya oo qayaxan marka wax laga eego wajahadda ay wax ka aragta siyaasadda soomaalidu. arrinta muddo kororsiga ayaa weli fashilmi karta iyadoo aad u diidan tahay beesha caalamka oo biilka ugu badan ku bixisa dowladda federaalka, hay-adaheeda iyo maamulada, taasi oo wejigabax ku noqon karta raggii khayre tuuray. hase yeeshee si kastaba khayre isaga ayaa soohday qoolkii lagu sirqiyey kadib markii uu qaatay mowqif uusan xaglo badan ka xeerinin islamarkaasina aan lahayn rukumo adag iyo ciyaartoy dantooda ka dhex arki kara oo ay taladu markaasi ka go-do. cidda qurah ee la qabtayna waxay ahaayeen maamulada oo hadda la dareensan yahay inay ridistiisii wax ka ogaayeen maadaama ay wada aamusan yihiin marka laga reebo puntland oo hadashay 36 saacadood kadib iyo dhowr siyaasi oo mucaarad ah islamarkaasina dabaal joogteynaya markastana ku gowracan danahooda gaarka. intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa qormadan kooban